بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkan waxaynu ugu magac darnay hidaha iyo hal abuurka ee Hargal TV toddobaadkaanse waxaa barnaamijka marti ugu ah Abwaan Hareeri oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ugu horeen abwaan waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka hidaha iyo hal abuurka ee Hargal TV كافيات ياد بعض ما صنتهاي هرجل تيفين وفرحصنا هنا البرنامج كنا عنا كسوق يقولوا ولي الشقة دي هي دقنية دي مركز لقى حلي إنك صد اللي جا أقوم بدي هاي أو أبوان كل سكت على أبوه لكن ده وحياة عن شعلها بكمتها مركز موضوع عن شعلها هذا جوار السنة أدينا إنه ده قف تيفي عن شعلها هي ده كمتها أصحاب تيجي أديات بنو فرحصنا هنا البرنامج كلا قيد كلمات إن أبوان السدو كلا أنا يقولوا فرحصنا هنا ما أنت برنامج لقب بشيء برنامج كهداية يا هل أبوك هرجل TV أو يوتيوب جنال أو إن بدن ديرة صار دونه هل أبوك يولي بأرمها قصية برشة سؤال شو جوره سئ ربط دوات كان هنا كويدي وحيد تهاي أبوان هريري محيي كوجو بحضي مجا صد حسن محويها هذه يضبط مع 16 شافية مجا عادي horta magacyo badan baa bulshada garanaysa qoloba magac ay bixisay hooyada magac bay bixisay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee magaalada dadka aynu iska naqaanaa ayaguna magac bay yaqaanaan ardayda aynu jaamacadda ama iskuulkii iska dhigan jirnay ama jaamacadda ay markaa isla dhiganaayeen magac bay yaqaanaan laakiin magaca rasmiga ah waa magac hooyada ku bixisay waa in badan Liibaan Axmed Harsiga la yiraahdo hooyada bay bixisay yaraantaadii in Hareerina wuxuu ku baxay bari aan iska dayaan saxooga hoos dheer dadna bila hilib hadi oo caate ah sidii de majabirka dadka qaar baa jiray majabir leeyahay mugta sida u bax oo de laftiyo baqarkii saariyo soo taagay kuwii de la oran jiray Afrika ay hurdooyay waxa oo noocaas jiray mugta kuwii kala noqoto marka bari waan dheeray inuu saa u dheer baa hadana bila hilib oo saa qodqoda soo lab marka soo la geedka Hareeriga oo garanaysa saas u baxa la masaaniyo de mala kor u bax marka Hareeriga saas lagu bixiyo geedka dheer Hareeriga abwaana sidaan ka warqabno magaalada Muqdisho ku sugan tahay caasimadda dalka Soomaaliya bal daawadayaal fara badan waxay aad u xiiseynayaan maadaama magacaagu saddexan Liibaan Axmed Xibsi ay ogaadeen Abwaan Hareeri hore ay ku garanayeen in taariikhdaadu bal kooban waxbarashadaadii heerarkeeda kala gedisaneed ama dugsiga Quraanka ilaa iyo heerka jaamacadeed oo aan dareemayo in hadda dhigatid taariikhdaas oo kooban bal inoo sharax kaafiyo ma santahay أنا وحنا الشيء كوني سجال بقولي كل هاد كشي هذا كل عركي أنتي وضع كل جمع قناي محوها دولتي هرنا لوجو كلا كاي كوني سجال بقولي كل عركي هاي مركا دادي ده هدي للسوق ولا جت شروي لا وحلا جت شروي أنتي وضعك خصنا مركا أنت ولينا ما في يومنا ما أنت مركا وحلا جت شروي وحلي ده وحالة أنت قصنا دوي كل هاد كيو كل عركي كوني سجال بقولي أنت سوالك جت شروي أنت كل هادي وحلا مليني على السوق حرينا أنا دي دور سنة وريو شجري اللي حجر ملها سوسو دي شوان سدادي إن بدأ الله حجدي دي كل دي أضط ونسي فاسين وبلاد وقوي برطمان وكسوت شيء إن بدأ صورن قال قايش كحاجة أيام كسوت شيء ده لبض دنعبة مركا دي قبلات ده حمل كلاجة حليه اللي حجدهاني ودقرهان وحراسين وقوي إن بدأ مركا وقوي كانوا بدنا هاي برطمان وكسو كوري بريجي هروب حني الجيل ونوجيل سيدو إلاليه وضع كروسكو ده ولا هذا إسكا هايو محوها دي بالبيل يسكوري في وضعك اللي سجونه يموته أي عيال كده ما العمد اللي جي لأن يردون بوح اللي جي من العمد دي من القرآن كمان أنا يردون بوح السوت القرآن كيقدر ما عمد أبو في الدواء درتها أيه جيلي نوع يلال جيلي نوع يلال كيلي بان هلكا كجر بنتي وحن قلي تهريبا قل هيه تهريب كانوا كتير oo adiga wali dugsiga Quraanka inta hal igeeyo tiri oo lagu yirgeela noo raacaya tahriib ka doorbid tahriib galay inuu Quraanka iyo Faatixada xataa aqoon haye ayaa tahriib galay xilligaasi dugsiga Quraanka lagu diidayay ee aad tahriibeysa geelkana ka dhuumanaysa imise sana jirtay طبعا waxa jiray 12 sano meelahaas sida qiyaasay hadda ma hayo laakiin sida qiyaasay intaas ma jiray
meeshii baan ka geeli ka dhuntay oo nidee malcaamad lagu geelmay geelin baa intii kale quraanka la geeyay waxaan arki jiray xirta iyo marka imaamada cado sheekh la socdo tusbaxdu kala soo yahay doo saa isku la socdo oo wada jir u socdo marka waxa ay xirta lagu dari lahaa dalkaas baad caalim ka noqon dadna halkii baan ka dhuntay بريق دم حيبها هي منها عند وذكرنا سيد بلاني ود هالك المدق يو حيبها هي شوف شيء دلنا تهريبين وكلام مركض تهريب كانوا كتيرنا أيها وإحنا القبط قلنا بدو ورتيه اللي هذا دقاش بوتنت كرات بعض هذا بالي دلنا هالكي بالي الكيس أينو الله ما دوشنا الكسر أو أديكو حالة وجد برسامة بركة هذا حمركو ما يا برتاجتو من اللي يا ياسين نفط هذه اللي يا حاجة اللي هي بالله عرلي هالكي بالي دني كي دكان لها قلنا قال هذا يا مسلم يسقط والمسلم بالله هاي قاربة وحيرة والمسلم قال لي ما هذا الشكل أبي حقار نوير نحرجتها دلتون حلي ورا كل شكل له إسلام كينو قات كاس دلتون هالكي أصلي يفهم الله كريه قرآن كي لقوا من ميري عمها بنو دمي هالكي ديدوش اللي جميل وماشي لقوه يستعمل قرآنك أنت أيا حبسي اللي كسر داي دلنا أوضي أباه أيا قاي هنولا بقدع هالكي مركا لك عقرب أيوة وجه دلتون مجال هذا حمر ودأتيال يقرب بدني تشوين أيام مركي دي أن سوقبته سؤال دلتون القرآن كي معلم بنوتو من عملها السوحيري القرآن كشوس عمها أيام مريو يعني جيتي أيا يسول جيتي وده حبسي لكي دي حبسي على حبسي أيا يوصل على جيتي بيسول هالكي بالك يوصل بالله القرآن كي تجويد كي سيو كتابها إلا يفقه منهاج كي وحنا ربع لبص صندوق دلتون ملعب عربي قال عربي أكاديمي ماشي شهادو دكسي الصراحة كان مكان بحي دبتونا شابعات ومطخ أيها كبير كلية الصحافة بركة هيركي واحد برشلونة نوع عصبي هاي كم هذين تصير صبرت واقرت أبواني واحد صومرتي حالة وأضج أو هيرر كلا قدسان له أو أد إنه قصة شاكسي إن قبل كوجوري أترسي أذيع هريري أهان ما حسوسته طبعا أرتا مصويك مركي لقى خلي كافية بحلي هذا أم عاشق أي قفك كو دي محوها كو كلفة أربو كي رح ناقي دبنا صو احترني أيوة ماشي دي ديان واحترو أما عاشق دينا بوش على يونتي بعد أربو دعيو كذا فلالو بدر كتيرني قبيل وهالك كتيرني marka eel bay u kalifani gabiyad anoo de markan xamar imid waano iskuul iska dhigto riwaayadaha iyo lahjadiidaas la iska jeclaa riwaayadaha yaryar baa sameeyay jiray kasoo wadaad habriga dambe marka riwaayadihiisa isaga dhex jiro dhowr riwaayadna soo saaray xafladaha iyo meelaha laga soo waco laakiin aan waxba tirin oo waxa isku ogeyn ayaa waxa dhacday maalin roob jidka muqdisho wad garanaysaa roob badaay dadna xiisadii marka soo daahan 2 saac iyo xogaa ayaynu kusoo dhaxdhacnay meesha oo iskuulka adiganayso iskuulka roobna u daayay jidadku u xirnaa macalkiiba yiri dafrno istaagay ma galisaan inaga joog ayu marka aanu macalkii agtaaga ban afar eray meeshi ku tirs aan ka mariyay marka waxa dheeray daruurta hadda ay sii duruufaha dalka ka jira nala digo roobkii daayay daruurta hadda ay sii duruufaha dalka ka jira nala digo ma daqiiqameen daqiiqada daraasad socotan dabada joognaa dib inaad noo celisay soo darxmo ma haba afriida sabarka igu horeysay macalkiin uu noo ogolaaday meesha anigii koox kale sidii uu idinku ogolaaday hore baan u gal marka waxaan markaa isku ogaaday mugta wada ka jaray markaa hore u sii wada shaqadii abwaane bal aan ku soo laabto isla su'aalahaasi wax la xiriira markii kugu horeysay ee aad ogaatay inaad hal abuur leedahay ma isla xilligaas ahayd maswa xilli kale oo kaga disan inta markaan mariyay afriidaas ayaa dadkii ugu dhiirigeliyay inta baad marisay keentay baashu waxa weeye waa qarkaad u saaran tahay in badan dawladda abwaan musharax abwaan baa la baxay musharax abwaan idaacad baa sii istaagay oo markii iid bay ahayd aniga mid kale meesha idaacadii isku tagnay waxaan leeyahay asuu wixii abwaan bala anigu waxaan musharax abwaanimo u taag abwaanimada u taagan tahay musharax asigi baa leeyahay musharax marna arimiisi musharax meesha laga doonayay ada abwaane kale markaasuu de wax jacbur meeshii anoo kaara kaymida kor u hayaamay biyaal soo kor waxba meeshii isku jacburiyay dadkina u qosleen arina waxa leeyahay markaad abwaan noqoto ayaa inoo ballan idaacadina sidii laga soo diray marka ka dugday markii iskuulada iyo xafladaha iyo waxbaan
ودي أنا تري ما أعرف كنت أبغى قبيلة ده لا صوب sheekadii sii waday wixii oo idin ba واحد شعب برودي واحد اللي قصلي واحد اسكت شعب برودي مركز تبغى قبيلة تنظيف هي يصوب أنا وحنا برطي هبقى واحد لو تري سروق لي أبواني ده هران دقيستي مركز أبوان مصر بان مركز ده مقصود على أبوك مصر أبوان oo hal awrnimadiisii wixii taba sar u sii qaad sida hadda aragna bari riwaayado badan oo aad sameysay halkii baan ka sii maqal dadkiina way dhiirigeliyeen iga soo daqaar ugu camirinay way jireen wax meesha kuma haysidoo diyahay isaga hadda kuwii aad sheegtay inay in badan kugu camirinayo oo ku oranayeen abwaan matida waxaan meesha kaga dhaqaaq iyagu wax ma ka tiri wallahi waxba kama oran oo de bulshadu waad garanaysaa xaasid waa iska buuxa hadii ma kaleeyo jannadii baa la geliya mid baa ku leeyahay dhanka kale inuu eegno albaabka imika waa jannadii mid baa ku leeyahay jannada isku ogaayay raxmad ilaahay xagga kale naatana aynu eegno bal waxa sida u shaqeynayso marka xaasid maadaama la waayin barigaasna dee anigu aan xooga saarayay gabayada wadaniyadda iyo wacyigelinta bulshada ayay dee sumcaddeediina wax u dhibayso ayaan stressiyay inaan kuwaas kale u jawaabo qofka sheeqiyaba dee aflagaadin u leeyahay sheekh waxa ay ka sameeyay meesha wax la isku reebanayo marka kuwaas kale dee uma joojin waxna inta kama oran